tahay wiilad mar dhow oo runtii aan la kulmay waxaan ku dhama guursatay oo 30 jir taqriiban ma guursanna wali waa hadda processka wada meeqa sana wada 3 sano sheekaysanno gabadh markaas wuxuu ileeyahay Sheekh Xasan oo gabadhii waa la kulmaa qolan wada fadhiisana waa sheekaysana hotel igu imaata laakiin ma taabto marka waalidka cunugiisa inuu wax farfareysanayo og yahay ku daawanayo ilaahay agtiisa xisaab baa u taalo oo istidaacadina hayo inuu u guuriyo halkan maanta waxay kula sugan Sheekh Qaariga Sheekh Xasan Macalin Alwaajidi oo halkan aroos ugu sameeyay wiilkiisa bal Sheekh marka hore ku soo dhaw saab TV. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa dhawaay barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum. halkan ka dhacay aroos ka soo qayb galeen culimo waaweyn iska kala timid meel kala duwan bal arooskaasi maanta aad inankaaga u dhigtay iyo marwadiisa naga warbixi. awalan ilaaha ma hadla jalla jalaaluhu ilaahay ma hadiisa kadib waxaan u mahad celinaa runtii saab TV walaalahii sharafta leh oo runtii maanta nagala qayb qaatay khayrkii iyo wanaaga meesha ka dhacay xafladii arooska idinkana ku mahadsantihiin gabi ahaanba bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala iyo mahadiina kadib awalan meesha waxaa ka dhacay aroos wiilkayga oo lagu magacaabo qaari baan ka bilownaa magaciisa maadaama 10 qaro xifdisan yahay iyo tafaa'ulan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo mid qur'aanka u khidmeeya intuu nool yahay marka Sheekh Hamza bin Sheekh Xasan Alwaajidi ayaa maanta arooskiisa meeshan ka dhacay nikaax waxaan ku sameynay Muqdisho guurkana arooskan xafladan waxaan u dooranay inay ka dhacdo Hargeysa maadaama Hargeysa abaal weyn ay nagu leedahay ilmaheega meeshaan ay runtii indhaha ku kala fureen waxbarashadii iyo dhinaca waliba qiraa'aadka ay ku hormareen meesha ay ku barteen marka horta arooskaas maanta intaasoo muhiimadiisa ahayd mid kale aan raba inaan ku daro waxay tahay hadafka aan ka leeyahay inaan u guuriyo cunug 19 jir ah awalan maalintii nikaaxa ayaan keligay umbaan aan qoslay xaqiiqatan waxaan ku qoslay marka la nikaaxay مهركي قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور مهر كواه $2,000 ويلكن سقالته بنجرواي $2,000 مالي تالو أما مالي كجر تحت ويلي اسم أركن مركز مركو أدها يعني وان كو أقبل مع المهر كذا أيان دا إلهي والدين تنودا وايو أسقى وحبا ما هيو لكن أنا والد كيس أنا هيو لعقت أنا أو هيو أنا مركز لعقت أنا كوبيريو ما دام جوري إسلامات oo meel kala ah hadaan dhisaan ajirka heli lahaa wiilkayga markan guri u dhiso oo aan asturo ceebtiisa aan asturo waxa weeyaan laba ajir baan helaa oo silatu sadaqatan wasila oo tii Nabi Muhammad ku tilmaamay marka Allah idin barakeeyo horta muhiimada azumada ama xaflada waxay ahayd in cunugaas 19 jir ah oo qiraa'aadkii dhameeyay aan asturo waayo wuxuu xambaarsan yahay kalaamullah كلامك إلهي ساسون وحنبارسن yahay hadii TikTok iyo fasaad kala hadda adduunka ka socda iyo Facebook iyo YouTube kan iyo balaayadan socdo soo dhaxgalo waxaan ka baqay in quraankaasi iyo khayrkaasi weyn oo ku dadaalay inuu si sahlan kaga fakto saas awgeedan inaan u xajiyo khayrkii diintiisa nuskeedana aan u dhameystiro maadaama guurkii nasfadiini uu yahay marka saasan ugu talagalay arinta kale waxay tahay aniga wiilkayga waa u guurin karaa oo meel labadooda intaan gabadhan gurigeyga ku soo kortay oo guriga ku nooshahay oo gabadha aan xaaskayga walaalkeeda dhalay ana quraanka baray asaga sidoo kale labadooda dhaqaale ma haystaan guri ana iga rabaan deegaan ana iga rabaan waan sameyn karaa anigu anoo qarash bixin runtii inaan si khaas ah u habeeyo oo gurigooda aan soo geeyo waan sameyn karaa laakiin waxa igala fiicnaaday in guurka wiilkayga oo 19 jir ah 30 jir oo aan wili aanan guursanin guurka ku buraaragaan iyo waalidiin dhaqaale haystaan meel kale sadaqa ku bixinayo wiilkooda oo qaangaar oo xaas u baahanna waxa weeye ceebtooda asuri la yihiin in insha Allah taala u soo jeestaan oo ilmihii guri loo sameeyo oo la wada asturo xumaantii aynu ka wada fogaano jamiican horta intaas bay xambaarsaneed xafladu idinkuna waa mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr ilaahay tabaaraka wa taala waxaan weydiinaa inuu naga aqbalo